nabadgelyadu waa waxyaabaha u qiimaha badan nolosha bani aadamka oo nabadgelyo haddaanay jirin nolol ma jirto. nabadgelyadu qof kastoo aadanaa baa u baahan, waxaa u baahan xayawaanka oo meesha colaadi ka dhacdo waa nabadgelyo oo lin nolol kastoo dadku ay ku haystaan waa laga qaxay lama joogo. duurjoogta xayawaanka ah iyo kulloodu meesha xabadu ka dhacaysa way ka qaxaan oo waddanka waxaa joogi jiray xayawaan fara badan oo markii lagu dagaalamay joogi waa daal kala galay. nabadgelyadu waa aasaaska horumarka. marka la doonayo bulsha inay horumarto oo ay wax qabsato waxaa lagu horumaraa oo lagu tanaadaa waxaa aasaas oo aan nabadgelyen la helo. caalamka oo dhan waxa uu intaa ka hadlaa waa amniga, waayo marka la rabo in horumar la sameeyo waxbarasho iyo tacliim in la horumariyo, caafimaad iyo cusbitaalo la dhiso, beero la kobciyo, wadooyin la dhiso, waxyaabaha bulshada u baahanta oo dhan laga shaqeeyo waa in salgii loo fadhiyaa oo waddanku degan yahay oo nabadgelyada haystaa. nabadgelyadu marka waxa weeyaan soomaalida hore waxay odhan jirtay nabadgelya naas la nuuga leh way odhan jireen. waxay kale odhan jireen ragga goshi waa nabad, ragga goshi waa nabad. waxayna uga dan leeyihiin qofku marka uu dadka kale uu nabadgeliyo oo isaga wax aanay ku maqnayn, beel kastoo meel degan ba uu dhex degay waa dhex seexanaya. gosh meel kasta u taallaa oo lama daba taagna. diinteeduna aada iyo aad bay qiimo weyn u siisay nabadgelyada. mawduucaasaan jecela inaan yar taataabano sababto waxa weeye waa shay muhiima runtii oo nolosheena taabanaya. kismaayana way ka muuqataa runtii nabadgelye fiican baa ka muuqata. qofku markuu haysto oo nabadgelye u haystana inuu iska daadiyo oo gurguriyo talaxumaday ka mid tahay. soomaalina talaxuma halkaa dhigtay oo wax badan baynu iska kharibnay. nabadgelyadu nabiyullaahi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ka hadlay oo waxaa ka mid ahaa axaadiidta rasuulka: man asbaxa muuminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quuta yawmih fakaannamaa xiisat dunya. qofka nabadgelyo ku jooga isagiiyo ahalkiisa dadkiisu oo waa fariisay isagoo nabad galay subaxa ah, caafimaad qaba, nolol maalmeedkii maalinta haysta, adduunka oo dhan baa usoo uray, waa adduunka o dhan gacanta ku haya. waa qiimaha nabadgelyada. oo nabadgelyada qiimeeda waxaad ku garanaysaa asmaada ilaahay waxaa ka mid ah assalaamu, waa allaha wax nabadgeliyeeya, waa allaha ka nabadgalay xumaan oo dhan. assalaam baa la yidhahdaa. diintu waxay xambaarsan tahay magaca alislaam baa la yidhahdaado udkhuluu fi silmi kaafa baa ilaahay leeyahy, waxaa guda gashaan nabadgelyada gudagala. marka islaamkaaba nabadgelyadii ah. hataa marka jihaadka cadowga lama dagaalamayo waa nabadgelya. waxaa la doonayaa dadka loo diidan yahay inay janno helaan oo toosnaadaan baa la leeyahay faraa kala baxa oo adaabay meelka u socdaanay ka badbaadiya oo banneeya jidka. marka isaga naftiisa jihaadkii gacanta laga dagaalamayay baa nabadgelyadii ah. nabadgelyadu waa waxa keeni kara ummadi inay horumar la timaado. oo qur-aankeena ilaahay markuu warramay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay nabadgelyadu waa nicmo waxyaabaha ilaahay gallada ka dhigay buu ka mid yahay. nabadgelyo way ka mid tahay. waayo nimankii quraysh la odhan jiray ee maka deganaa waxay ahaayeen birimageyday ahaayeen, adduunka meeshay doonaan bay mari jireen. waayo waxaa la odhan jiray waa deriskii xaramka, beydkii ilaahay bay jaar la yihiin, markaa lama taaban karo, meel kastay marayiin. allah subxaana wa tacaala wuxuu ugu gallad sheeganayaa waxa ilaahay siiyey oo nabadgelyadaas nicamtaa uu siiyey. falyacbuduu rabba hada albeyt alladii acamahum min juuc wa aamanahum min khawf. yani ha caabudeen allaha ka nabadgeliyey maaragta waxaa la yahaa khawfka oo gaajana ka quudiyey oo dhargiyey. allaha ha caabudeen bu alla subxana wa tacaala. waa xusuusina xusuusinay nicamta ilahay siiyey. qolya reer saba la yidhaahdo oo maali meesha la yamantaa deganaa
وإلهي يجعل السيئ الرب يا حلال الله بيرود ووين لو برواقره ووين لو هدي سلة ملح الله ثم كان أحمر طو كعمها بيجون تاجين بس سلة أسفلات كل سبت وكاسة وحالي بلدة طيبة ورب غفور ورب ونكسر لقد كان لسوا في مسكن آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورزق ونكسر هنا والله كما هدية لك ونكسر يا ربي قدم قيدي دافعين وكاسين كي كبرين بإلهي نعمتي كقاضي نعمتي والقحي لو دينوا نبتقليها اسمك وحيوبها هنتين إلاريو محال نبتقليها لو إلاريا وحلقوا إلارينا يا مركا كوات شكرنا خلقوا إلارينا هو إلهي تسيي ويركم هذا عليكم ونقرأ وإن شكرتم لأزيدنكم بإلهي حتى يقول شكر نقدان وواحد يسيي في عالم كلمة التقدان وحويان ودين زيادين يقول الله سبحانه وتعالى وهدينا شكر نقو وايانا نمعلا الله يسكا قاضية وقرآن وقوة رميا قرآن دقان مير دقان وإلهي من العيي وواحد كستو نور هايستا رغد العيش بهيستا مركزان لو عرف فكفرت بأنعم الله وحي إلهي السيبي كقالوا منه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وحي إلهي الدنسيي هو يقاتشره يهو يعبسده وتعبير أطيب المقولة تعبيرية وقف كان مركا وقحو أما عولانك الشو ميرو وحكا عريه وبغي ميرو يستقمره وقاتشا كل مان وبغدين تبا مركز واحد والموجة مسلم مركز والموجة مركب عوش شكر نقبة على ربع وحي لهين السيئة اللي بالدنيا مالك خيرك ينعمت الله يستوب وإن شكر نقاسي إلهي إنه إلى اليوم وإنه زيادة وحكم ده وحيابها لو إلى اليوم إلهي الشرع دي سلغن قلنتي سلغوا إلى عليها شرع إلهي لغن قليوه وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسا بينهم فقد مدحدي شرع عليه كل ولا ويان إلهي دخل وحودك وحل لها القرآن بعد كده حل السكرية رسولك إنه شيء صلوات الله والسلام عليه وحكم ده ولو إلهي كل الدين تما كلا سيقات قالوا مالك إلهي نسيي ونعمت كمدا مالك إن الحقوق دي صلاحيه والزكاة أي كوكتها زكاة واجبات كالدين إلهي واجبية كمتها ما أنت وقت إنه وضعك وعايز تأبار حنبا تاجن من رب الله كبدا الرسول بن الشيء ما كي تقول بحين ويان زكاة إلهي واجبية منع القطر من السماء وحلقت شوشيا روبك أي سماء لقت شوشيا ولولا البهائم ومن طرب هدي أما يرانك أنا تشير لهين إذا روح مش تيمبا حيوان كاسب إلهي ما كتم به وقلنا حياة الوجود البادية زكاة مركا وواجب بني كمان القيامة قفك والكير الدورة قفك حراب الله غير لها أرجع لها الله ضايع وحين وهاي لأن بعد تبضل بالله الشيء وما أنت تركوا دي هي 50,000 سنة كنتم كل عصر نقط أيام يربنا وقد يلا تشوفينها وكاسا كي جيلا إلى الشرعي جيلي وجيل آخر شوقي ما أنتوا جيل سوبرنا أو ششلا استوى بالكينيا وكاس كنتوا الدنيا أساس ولا وعيني مرة وكل مرة يسوي شيء فبنانك ما كهاش أوضة ما يساعد تمر يسوي أي تيوري يسوي بدونيس هذا العقد هيستان يذهب يدولار إذا كذا بحومة يا كله ده وحد لو بدل دونا لقالها يوحى صورا وحلي صحايف يو وحيابو مركب بيرو كلو بالبلارن وسنشيغلو كلا وضب لقينا بكسلوك بيهريس ولوك بيدعيس لوك بيه ولا وعقابين مركز زكدو وشيء واجبه حولها إلا قبل حيارك غير الله ده محل هذا العقد laga bixiyo oo qofku uu dareemo culimada weydiiyo hadiyo goraare nisaabka muxuu yahay lacagta ka baxaysa markuu intee gaaro ayay noqonaysaa zakada bixiso xoolaha musaka goys ma yihiin
علماء كل شوك تمام كاستبا أو كل شوك تقدر يسريسا وواجب وحيابها إلهي سبحانه وتعالى وقت بعدين oo nabadgelyada lagu helay ka mid tahay zakada oo la bixiyo waxyaabaha lagu helayo nabadgelyada waxa kamid ah dadku inay ducada badiyaan oo ay ducaystaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay baryaan oo rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi markasto bisho ay dhalato wuxuu oran jiray Allahumma ahilhu alayna bil amni wal iman إلى واحد نقول كتاب بشار من والأمن والإيمان والسلامة والإسلام بيلنا بالدليل ولا يأتي أمن إلى هو نقول بيلنا ولا وقت نعطيه دعاء شري رسول صلى الله عليه وسلم عليه ومهم ما كإلهي إلا بريوه الله إلى بريوه وبالشجو ذاتك حلك يمامك هي حلوة كساران سلام أنت توعيد في الله صمين يو إن بالشدة لتوجيهه ولهبه وخير كالوهبه ومضونا ملاحظة يمامك يكتب رئيسه والدولة النمو وحيابها أمن إيراني كمتها. هذه مركز طبعا منطقة الوضع تكفل لاجئ أو خلاف بين المسلمين وعلى غور قوية خلاف وياه. الخلاف الجوج. وتطبق أي سلوك قاطع. والدولة النمو وحسال معها. لما جاي إلى كنيسة تلقى حلقة علينا أي سوى نفس الوشق أيام ومدة دنتينا يبوشنا دنيهنا يعدالة إلى كشق أيام. هو حمد قال يعدي كمتها. إيمانك اللي وهلي إيمانك أو توصناه دين طلبه توصناه ومركي ليدا أي الفريقين أحق بالأمن لبضا كوحود يا مطيء الأمن للسيو الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هو إله الرميين إله الرميين إيمانك هذا روح شرك يقال لكم إليهم الله بيكون عليهم الله بيفريان الله بيهمسين دينتي شرع كدغانيان عدالة بيكون شقيريان bulshada danaheeda ay fiirnayaan naxariista baa ka muuqata xageeta washaw taala xayaada marka dadka xilka qaaday mas'uuliyad way baa saaran oo rasuulku noo sheegay sallallahu alayhi wasallam alayhi kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati marka xil weeyad qaadaa qofka xilka haya oo isxil qaamo oo ka fakaro Umar ibn Khattab radiyallahu anhu xalaashu kuriinu yiri law 'athara baghatun fi al-'iraq la sa'alani rabbi lima lam tuslih laha tariq ya Umar هذه بقال كتر طروطة وطلع من كم العراق ربنا ما نتقيم ويدينه والطريق مسؤولية دين المسؤولية المكان لو بفكروا تضم حي طبعا يا محاي استلبا بايدو ده حاجة واحدة قطع سيلو أجاشيا سيلو دوين كلو أجاشيا سيل بيا لو كان سيل لو صويا سيل لو شلو سيل دين تضلوا يداريا سيل دعوة الله فيها سديه وحفر بدن وحلقة أيها صارت قبل لحظة الشعب وين لحظة كتب ضيّة وين لا شقية وين الفكرة تاجا markaasa ummadii hagaagaysa marka la isku duuban yahay khayrka laga wada shaqeynayo barbay ka baxda oo bakayla qalan arintu ay noqoto oo ummadu isku duuban tahay oo la ilaawo waxyaabahan qabyaaladii jaahiliyada shacabkeena halka waxaa dhigay qabyaalad meel ay si looga baxo wala garayso wax laga labo qabyaaladu ma aha wax irbada la iskaga mudo ama kini laga cuno ma waxa weey waa shay la iska daweeyo oo diinta ka daweynaysa inaad dareento qofka muslimka xaq u leeyahay walaalka bulshadu waa mid kaliya bulshada islaamku waa mid kaliya dadka meesha waa degan waa dad wada ehel ah waa dad islaam ah waa dad wada darisa xuquuqaha ka dhaxeeyo dhan baa midaynaya kitaabka quraanka ka dhaxeeya qiblada ka dhaxaysa waxa weeyaan dhalashada ka dhaxaysa deegaanka ka dhaxeeya waxa rabaa in la isku duubnaado oo la isu caqli celiyo oo la isu dulqaato oo la isu naseexeeyo oo laga baxo tafaraaruq iyo qaybsanaanta hadii dadku ay caynka ku socdaan tafaraaruq kan wadanka waa la iskala wareegaya cid kale ka qabsan doonto waaba Soomaali jiiltay ku dhamay doonto badan waa muhiim baranka inuu yaaro mashacabo iyo madaxay oo isku duubnaano khayr kula shaqeyno oo tawashad markastaba cidii madaxa ila taariikhdii reer barmeeya ka soo galay ummadda islaamka cid kastoo xilay sawirkeed wargacman jiray cilku qof xilhayo ila yiraahdo ani wanaag tahay qara markasta tawashad wajiyada taariikhda madax iyo shacabkooda inta way sayar waxa ka dhacaya laakiin waxaan falaagnimo lama ogola burburin lama ogola hadal iyo waxyaabihii lagu kala dhamaysan karay wada hadal iyo xajiis iyo tawjiihaad iyo taaysu soo jeedin iyo wax ku hagaagan waxa halka hoolka inoo yeelay waa marba jabada intay kacdo
ummadii sana isku duuban oo xubin sayiro maamul jiro in la dumiyo oo waxa ay dhigay aqliga inuu koro oo maankeedu maskaxeedu shaqeyso oo la isku duubnaado oo wanaag laga shaqeeyo oo khayr laga shaqeeyo oo la isu tanaazulo siyaabahaas wax loo gaari karaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'aala laga dhigo alladina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka